dowladda Mareykanka waa ogtahay laba meelood baan kala taaganahay annaga dee waxa noogu weyn oo dad kala hadla waa ictiraafka iyaguna halkan ay dowladaha badankooda Yurub iyo iyaga istaageerayaan arrintu waa arrin Afrika kalabaad baan nahay dee annaga waan naga leeyahay Afrika maxaa laga hayaabay dhigaan sanadkan waxa dheer oo leeyihiin taa dee waa la gaari doonaa Afrika naga laho waa la geli doonaa waan se manadii darinay wax naga horeeyay maxaa wada qabsanaa way sanadkan ku daray si wanaagsan oo hadii ictiraaf wax ka hooseeya maxaa wada qabsanaa kaana waqtigiisa ha gaaray marka waxaanu in badan ka wada hadalnaa sidii wax loo wada qabsan lahaa runtii waxaanu ka dareeminay inay aad iyo aad nimankaasi uga dhow yihiin sidii hore ahaan jireen oo ay aad u danaynayaan in Somaliland ay tahay dowlad xilkas ah dhinacyo kala duwan baad la kulanteen qodob iyo laba haddaynu idhaahno waxa ugu waaweyn marka iskaashigaa laga yimaado ee Somaliland maanta iyo Mareykan la odhanayo waa iska kaashanayaan horta waxa ugu weyn marka waxaa la yidhahdaa ceeliyadu markay heshtay iyo cidda cabta horta waa siyaasiyan la soo afkarta marka siyaasiyan la soo afkarto ayaa wax wada qabsan kara laakiin meel aan guud laga heshiinin wax wada qabsan karo marka wax wada yuhun tii guud in laga heshiiyo ah inay aad iyo aad u dhowdahay oo labada qoloba galowsan yihiin waxana imka qabano waxana aan ku xigsin oo kullu talaabaha la qaad waxaan ku heshiinay wax kamid ah oo koobka ah Somaliland inaan ka wada shaqeynay iyo dowladda Mareykan ta ugu horeysa iskaashiga saddex qodob oo waaweyn mid waa ka dhaqaalaha wadaagtooy waxay la socday ganacsiga ugu waaweyn dalka suuqaas anagu waxaanu keenay qodobka ah halkan waxaanu ahay dad dhaqaale leh oo isku filaan kara haddiina laga qaado xayiraadda gardarrada ah ee leeyahay baanankiina waxay dhigi kartaan waayo xawar baan idin marinayaa wali wayda anagu baan kala goyn waydaan kala baydhin taa horta iyadoo meel baan isdhign in ay dadkan ganacsatada maadaama ay dad baacim tiro oo isku filan lacag hayeen inaan lacagtooda siyaasadda lagu xidhin iyo wada shaqayntooda iyadoo waa qodobkaasina waxay la tahay in intiisii badnayd laga heshiiyey wixii ka dhimanay farsamaan xaal u noqonayo ta siyaasadda waad ogtahayoo taliska kolba maamulka haya talada culis badan baa saaran Ukraine baa ku furan loola kalo siyaasadda dowladda baa ku furan marka wax laga yaabaa arrinta Somaliland inay mararka qaarkood aanay ahayn xagga hore la soo dhigo talabaad saddexaad ay gasho laakiin maanta waxa muuqata qofka hadlaaba inuu Somaliland Ukraine number 1 arrinta labaad ee aanu waa dalka Somaliland wax la qabsan ta kale hirgasho waxa weeye waxaan u malaynayaa may dhicin intii ay nacasumeen labada aqal ee Congress-ka iyo Senate-ka labaduba midna gaarkooda markii dambe iyagoo isu dhan ay labada arrimaha dowladood ay qadan noo sameeyeen quraan noo sameeyeen ee aan wada shiray qolada loo shirabo go'aan bay soo saartay kuwii hore Congress wasiirka khaarijiga u direen waraaq cod leeyihiin Somaliland waa in la hawlgashaa oo hawlaheeda haddana tiro tabareey ku dhow ama ka badan oo kuwii arrimaha dibadda la shiray ugu xilka weynaa aad loo ixtiraamash ee gudoomiyaashii waa kuwa soo saaray biilka aragtay ee dowladda leh Somaliland waa in arrimaha dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo lagala shaqeeyo horta go'aano ka hor soo baxa hore ba jiray waa talaabo hore qolada maamulka waxaanu kala kulanay saddex iyagoo wada socda afar hay'adood aqalka cad qolada arrimaha dibadda qolada amniga gaashaandhigga qolada dhaqaalaha ayaanu shir weyn wada yeelanay oo aad iyo aad moodaysay dadka yuhuur ah oo shaqeeyadu inay aad iyo aad uga dhawahay kadib kulamada markaad yeelateen xafiiska qaabilsan Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda hoos yimaada ama kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Afrika qoraal Twitter-ka ay ku baahiyeen waxay ku sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay kula kulmaan iskaashiga Somaliland iyo Mareykanka aad ka wada hadasheen kadib waxay raaciyeen in iyagoo ku socda Soomaaliya oo mid ah sidoo aragta qoraalka horta gabadhaasi arrinkaa way soo saartay markaanu fadhiinay arrinkaa iyana way sheegtay wasiirkeeda
annagu haddaanu maamulka maanta taaganahay weli soomaaliya manaan ictiraafin oo manaan kala sarayn weli ereygaa hoos ka xarig weli annaguna waxaan saarnay meesha waxaan u nimid inaanu ictiraaf iska helno umanaan iman inaanu idinka codsi waxaana taraya waxaa tara wax ka horeyd qaran baanu dhismay oo waxaa qabsadee waxaana la qabsanaysaa waxaa la yidhi haa laakiin de kolba salaad waktigeeda la tukadaay haddii maanta annagana ictiraafkii inaanu anagu mikirahra ay adag tahay oo u baydayay meelo badan in la maro idinkana aad ku adag tahay waxa aan ictiraafahay nama maro dee meel ka wixii imikaanadu qabsan karaa kuwa hadal labada dhamo kaas mid qarsoon mu ahayn in waliba bushekiisa uu sheegtay way soo deysay imise xildhibaan oo labada gol ah iyo imise dad hoo kale oo maraykana ayaa ka jawaabay arrintaa hadalka adiga afkaaga ku habboonayn haddii lagu yidhaahdo inaanu ka daba hadalna maxaan uga baahana 4-5 senator baa ka hadlay iyagoo jamacay ka hadlay senataradii iyo congresskii think tangoodii oo dhan baa ka hadlay profesaradoodii baa ka hadlay marka waxaa lagu maagaya maanta maalintii halkaa baranka joogi lahaa maahe dowladdooday bushkaranaya way iyagaa wada markaa marka anagu dee kamana jawaabin waxba lagama jawaabo laakiin haddaa kaaga jawaabaya labadaa bosishan markaan fadhiyo war ka hadan annaga qodobka u horreeya qolba kala waxay war maanta waxaan u baahannahay ictiraaf annaga markii aad caawinahay waan soo dhaafno annagaas dhisnay dimuqraadiyad doorasho nabadgeliyo dhaqaale samayn annaga waxayga dhisanay ee ma iskaashana waxyaalaha xanibadaa naga qaadsa waagag in wadahadallada somalilan iyo soomaaliya in muddo ay socdeen waxyaaba la taaban karana badankooda xilliyo kala duwan bay hakad galeen xaggee wax ka qaldamayeen halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahayd sartu waxay ka qurantay dadka imka xamar ka taliya wadahadal somaliland ma doonaya waayo waxaa arkaan inay wax walba haystaan oo waa la ictiraafay iyagaa dowladda baa la yidhi marka waxay rabaanba inay dhahdaan dee annagaa dowladda yarna soo raaca dee iskaashta dowladdiina taa ictiraafkiina annagaa ictiraaf doonanaya haddaynu marka hore laba dowladood ahay inoo isu yimid oo soomaaliya la isku oran jiray haddaynu dunno anagu taadaanu dhisnay haddii qoladii international qolada dowladaha caalamka waa weli idinka siiyeen annaguna kayaga annagaa doonan aan kala ammaan la-aanu ayaa horta sheekada ku dhuntay marka haddii la leeyahay hadla idinkaa isku dowlad ahaaye inay deegar qaataan bahay weli nin madax xawar joogo la miyaad maqashay laba dowlad suud baanu ahay waa maya marka la suud haddana gobol baa waxaad tihi maxaad u kala goynaysa dadka ma kala goyn kartaan annagaa xukunuun baa ka bilaabaa dee ha iska wateen dacwadooda iyagu halkooda ha taagnaada innagaa laga rabaa somaliland inaynu adduunkana ku qancino ictiraaf inaguna ismuujino dad dowladda oo adduunka u baahan yahay wax qabsaynu nahay waaba intaasu maxaa inaga yaala wanaaggu waxay dhahaan waryaaraheen laba dowlad baan haddii aynu doonno safkaro weli maxaanu yaalla dee diido ka dhagaadkaaday dee inna waynu ka dhagalaanay warkooda iyagu way diideen soo maaha inna waa ka dhagalaan marka haddii wadahadaladii dib u bilaabmaan tusaale ahaan oo kale xukuumaddan muddo imika xukuumaddan soomaaliya joogta dhowr jeer baydaa wax isla fahmi weydeen kulan mar Djibouti waad ku yeelateen haddii wax isbedelaan oo ama Soomaaliya inteedii ka soo dhawaatay Somaliland maxaa ka diyaara ma sii wadaysaa horta Somaliland waxay rabtaa wax kastoo jira inuu hadal ku dhamayso laakiin dee dadka waa hadal waa inuu isaguna hadal diyaar u yahay